كدواد صدن سنة يا مستعجل ميدي مالك المرأة لا يعني جالو سياد أبيه قرشدا وحال قاضي هسي كعانك كوي لباتنك أكتوبر سيدا هستي أكتوبر أدارها أوكلي أي دليردي يميدي كل ميل كسته waxaa qabsaday taageeradii militariga hogaankii militariga kacaankii ummadda Soomaaliyeed Jaala Maxamed Siyaad Barre ilaa iyo hadda ma hayna wax taageeraya mooryaantii hogaaminaysay jabhadii xukunka militariga la dagaalamay ma hayna dabadhiliskii iyo jaajuuska u shaqaynayay Itoobiyaan wax taageeraya ma hayno حتى قبيلودي ما تاغيريا إن لله وإنا إليه راجعون إله أيسن نوغر نقل ومد حتى نولين وهذه لو أوران لها دad كان dad نولا oo mataqaanaa iisha xilligaas ogaa oo siyaad barra qabiil ahaan kula socda hadii loo oran lahaa macnay ahaan lahayd dhalinyaradan waxay dhasheen burburkii kadib dhalinyaradan cid intay guri ku xareysay hanuunin u samaysay oo siyaad barra u boonboonisay ama u faanisay ma ay jirto ee waxa ay wax ku go'aaminayaan war xilligii siyaad barra maxaa jiray maanta maxaa jira intaas markaas shabhadii mooryaanta ahaa iyo xukunka militariga waxa u garnaqay shacabkii markaas guushi waxay raacday dawladda militariga hogaamiyaasha jabhadaha waa la habaaraya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un hogaamiyaasha jabhadaha waa la habaaraya siyaad barro ay la dagaalameen waa loo duceynaya wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim war muuqaalkan iga fogeeyo oo sharkireeyo laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo qodob maxay tahay sababta ay shacabka Soomaaliyeed u amaanayaan siyaad barre oo dhowr iyo 30 sano ka hor dhintay maxayse tahay sababta ay ku jeclaadeen shacabka Soomaaliyeed oo siyaad barre taageerada intaas leeg uu ku helay qodob labaadna waan rabaa inaan dul istaago waxaad aragteen dad markasta leh aad baan u necbahay dadkaas leema tuso macnaheedu markaan leema tuso ma aan shakhsiyadooda iyo qof ahaan inaan necbahay balse hadalladaasaan diidayo hadalladaas waxaan u diidayaana wax kale ma aha markaan su'aalaha hadda aan ku weydiinayo aan weydiiyo baysan iga jawaabin marka hadalkoodii waa nacay ee ma aha inaan dadkaasi kale u necbahay أنا waxaan ku jiraa dadka jecel dadka in la doodo qofka in mataqaanaa wuxuu rabo la waraysto loo jawaabo la isweydaarsado xogta hadii qof uu qaldan yahayna la qabto hadii uu san qaldanayna lagu raaco kooxdaas marka waxaan nacay hadalkooda marka ka jawaabo ama su'aal aan weydiiyo baysan jawaab isiinayn illa way ceebaysan yihiin marka hadalladoodaas waan nacay su'aashaas waxay tahay siyaad barre waxa maanta wadanka ka socdo dhan waa wuxuu abuuray siyaad barre waxa maanta wadanka ka socdo dhan waa wuxuu abuuray inaan qodobkaas marka la dul istaagana waan rabaa iyo inaan tuso su'aalaha aan hadda idin weydiinay marka ka jawaabi waayaan waxaan u nacay doodooda dhamaantiin aad doontaasito horta intaan idin la wadaagay ummadii Soomaaliyeed sheekh iyo shariif qabiil kastaba haddaad oran lahayd siyaad barre mareexaan baa taageeraya iyo haddaad oran lahayd siyaad barre daarood way waxa buunbuunanaya qabiil baa lidin tusay dadkan waa hawiye waa dad reer Muqdisho bal la arka fariimaha ay dirayaan maxamed saadna xoolo ma bixi jirin maxamed saadna lacag bixiya ma ahay guriga hontidii uu lahaay oo Soomaali way ogta guriga shaqaalaha uu lahaay asaa bixi baardoodisha October ku yaalo muxuu ku yaalo waa bari saalahay labadaba kacaanka markuu dhaliyo dadka Soomaaliyeed ku sadaqaystay maxamed saad waa laga yaabaa caa'iladiisa qaar kamid oo inay wax helaan laakiin maxamed saad nin hanti abuurta ma ahayn garaadana hadda anigu uma baana sababtoo aniga karyeerahan soo sameeyay karyeero oo buga ma ahayn أنا حرفتي كرتدي إلهي أمركيس يو أقونتي دان سركال كل نقدي دال كي كان هذا بروميسيونا كهلي دل عادها أنت دل عادو أنا هلا مد قبيل يوجاس وزير باشي دا ولدي هل هبن مرتوق من غني ودول دي إجلا هذا نين كان وحل بان شار ساعدة وحي كجرا حل بان هذا الصومال لانه كجرا حلبوها يا وكان يسوق أمانة سياد بر إلى أركوان الإساق وأبرج على والله نكاس نين صومالي بوها مركه هوري أنا نكا نين عاد صومالي عقل قوم بالله حد مركي دمبه نين صومالي بوها صومال فاهم دلك أنا عادي وحوتري دلك مركو خفصدي بابا بوها
Soomaali waxaa soo warshada waxaa soo dhismaa waxaa soo ciidana waxaa soo dhintiga sameeyay laakiin markii dambe soo halkaas marka waxaan ku jabinayaa dooda dad kale daarood baa boonboonanaya doodaas waa jaban tahay kuwan soo isaaqi awiya ma ah digil iyo mirifle iyo dadka kale ee daaroodka kalena furaha ka qaadaba waxa taageersan waa iyagaba halkaas ilib waxaan rabaa inaan idin la wadaago maxay tahay sababta xilligan dadka Soomaaliyeed ay ku jeclaadeen Siyaad Barre qodobkana horta ugu muhiimsan waa inay dadka Soomaaliyeed arkeen xukunkii Siyaad Barre markuu dalka ka talinayay say ummadda Soomaaliyeed ahayd iyo sharaftii ay lahayd iyo 34 sano kadib wixii bedelay waxay dhaleen ama natiijadii ay dhaleen taasi waa qodobka ugu muhiimsan ee dadka Soomaaliyeed xilligan mucaarad iyo muxaafadba ay ku taageerayaan Siyaad Barre Allahuna xariista Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa laga sheegay in markii uu joogay Bagaati uu yiri hadaan ogaan lahaa in waxaan ay ku dambeynaysa ama xaaladda Soomaaliya ay sidaan noqon doonto marnaba Siyaad Barre lama dagaaleen kamana hor imaadeen Cabdullaahi waa hogaamiyay ugu horeeyay haddii ugu horeysay ee hubka qaadata ee la dagaalantay Siyaad Barre waana qofkii ugu horeeyay inqilaab ka fashilmay inqilaabkii dhicisay 1978 wuxuuna ka soo jeedaa reerkii Siyaad Barre inqilaabay ee xukunka ka tuuray Allahuna cali salmaak waa nin majartana Maxamuud Suleymaan isagii baa wuxuu leeyahay hadaan ogaan lahaa in xaaladda Soomaaliya ay saan ku dambeynayso marnaba ma taqaanay mucaarada waa qadar baa dhacday haddaba dadka Soomaaliyeed qodobkaas ugu muhiimsan waxa horta Allah marka yu dhan Siyaad Barre wuxuu kala gitay yu dhan maxaad keentay dawlad la'aan bay maanta hadiiba ay leedahay dawladdaas way xumay oo kaligii talis ma yahay war maanta intii ay qabanaysay dawladdaas ma isiisay shacabka su'aashaas u gardhiganayaan markaas yow meesha ma taal waa inaad qirtid ninka ragga limintiisa u qirtid shacabka Soomaaliyeed qodobkaas ugu muhiimsan qodobka labaadna waa wadaniyadda Siyaad Barre nin wadani ah baa qodobka saddexaadna waxa weeye in Siyaad Barre markaasi uusan baahnayn uusan hal cariisho Soomaaliya ku lahayn uusan hantida ummadda boobay xukunka ha jeclaado oo qof kasta xukunka waa jecel yahay ama inuu taliyo laakiinse wadanina waa ahaa inuu wax boobo hantida ummadda dhacana ma rabina hantidiisa buu lacag isagu uu leeyahay wuxuu ku bixinayay inuu ummadda wax u dhiso intaas dadka Soomaaliyeed u taageerayaan Siyaad Barre waa qodobka labaad waxa weeye dad baa waxay dhahaan iska soo jiraa markay fashilka 34 sano jirsaday ama 35 sano jirsaday ay waxba ka qaban waayaan oo mataqaanay ay baroortaan oo mataqaanay xaaladda wadanka ay waxba ka qaban waayaan inay marxuun 34 sano ka hor dhintay inay dhaleeceeyaan oo ay dhahaan hadda waxa xaalka maanta meesha ku marayo waa wuxuu isagu abuuray ama waxay ka dhasheen ficiladiisii dadkaas doodooda waa dhibsadaa sababtaan u dhibsanayana waa inaysan su'aalo jawaab u hayn su'aalaha aan weydiin doono war ilma adeerada Siyaad Barre 22 sano talinay sidii naarin raacayna 22 sano nin wax qabtay buu ahaa wax waa ka qaldamay karaan waa bini'aadan qofka bini'aadanka khalad iyo sax waa ka dhici karaa wuxuu qalday wuxuu saxayba nin dalkan hagaajiyay kaabayaashiisa hagaajiyay warshado badan dhisay shaqeeyay buu ahaa su'aashaan ku weydiinaya 22 sano Siyaad Barre talinay Soomaalidu dhaxalkiisi ilaa maanta way intifaacsataa bal 35 sano baa talinaysay markaad ka soo tagtaan hadalka aan macnaha idin sameeyeen ee ah waxa uu abuuray bay natiijadan ka dhalatay bal isla barbardhiga fursadaad haysateen isagoo 22 sano wax uu qabto 35 sano maxaad fahantay bal Soomaaliya gan waa loo wada islaam ilaa kaama ay saarayso waxa qof dhintay wuxuu sameeyay baa wax ii dhimay kaama ay saarayse 22 sano ka jar 35 sano 15 sano oo dheeri ah baad haysatay 15 ka sano wax ma ku qabato intaasoo shirara ma gasheen intaasoo ma isku timaadeen maxaad qabatay maxaad santeen ilaa waqtina ka waqti badnidiin fursadna ka fursada badnidiin oo xilligan tiknoolajiyada casriga ah meelaysan Soomaalida maanta way isxaal ogtahay
dhaqaale waad haysataan maanta Soomaalidu waa millionaires maxaad qabateen maxaad keenteen hal nin baa 10 warshadood dhisi kara Soomaaliya xataa qabiil ahaan u dhisan wada warshadood doodiinta qalbiis haddaad idhahdid siyaad barraa waxaan abuuray oo ka dambeeyay isagoo ku xumaynaya qabiilo kale kaba soo qaad hawiye isaaq oo ku xumaynaya kaba soo qaad inuu dalku burburo aan la is-aaminin dagaalkii 4 bilood dhex maray xali mahadiya caydiid ma siyaad barraa dhigay ilaan waxaa la dagaasheen siyaad barru ahaa haddaad leedihiin ninkan mataqaanaaye daarood in loo dhacona isagaa ka dambeeyey daarood waa isdagaasheen oo bannaankaasaad kala marteen hawiye inuu islaayo ma siyaad barraa ka dambeeyey meeshalaan idinla dhigaya hawiye dhexdiisa inay caydiid iyo cali isku dilaan ma siyaad barraa ka dambeeyey waaban qaadanay doodaada saad u dhigaysid baan kuula qaatay waxaan kuula qaatay in siyaad barra daarood godob geliyey oo daarood in loo dhaco isaguu ka dambeeyey وأنا هوي دارود يساق إسأمينه وين ويسوي كذا معي أوكي هوي إنه إسأمينه بس ياد بلا كذا معي إلا وحي لو كنت واحد حمرية وأنا دارود يهوي ده حمرية تنكر ما واحد يقدر يدعي سهل أنا ما أنت النور أو ما تغنى عنده يقول شيئين وح علماء وح وحجرات وح أقويان وح خبراء سوالي ما أنت النور waxay ka gudbi waayeen caqabad uu siyaad barra abuuray way ka gudbi waayeen miyaad iga dhaadhicinaysaa warbal Soomaaliya gartaas ma waxaad iga dhaadhicinaysaa waxa aqoonyahan iyo waxa madaxa cad ee Soomaali intay maanta isku imaadaan hadday yihiin dad diyaarsan oo raba inay dawlad noqdaan caqabad uu siyaad barra abuuray iyo wuxuu filkiyey bay furfuri waayeen oo ka dulboodi waayeen miyaad iga dhaadhicinaysaa aniga oo ka qaadanaya markaa kama jawaabaya markaas waxay ku laayeen hadde idan ka saari mayso boqolaal wadan oo hadiiba aan saad u dhigtaan idin la dhigna kaligii taliyahay baa soo kabtay oo maanta dunida calan walaynaya Rwanda ka mid ah Liberia ka mid ah Nigeria ka mid ah hay markay kuwaas kaligii taliyayaashooda waxba ma falkin laakiin siyaad barra baa anaga quful lagu xirtay qalbu inta Soomaalidu ku xireeyay ku sanka duuraystay furihiina waa la dhintay furihii waxa idin kala dhintay siyaad barra miya bal aynu tagna qabuuri garbaar war siyaad barra furiyaasha Soomaalida kala dhintay hal laga soo saara qabuuraha war ma reexaanka garbaar joogo war ordo taga magaaladaas qabriga siyaad barra inta furtaan war bal ka soo saara furihii Soomaalidu la dhintay oo qiimi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waa eed aan macna lahayn وإيد قف دمير له أو عقل له أو وحبرتي وصل أقبل كريم وإيدين علواء سمر علواء وإيدين قف ليس كلا دول داعي ما أقبل إنه إذا كمان يلينه إن مرحون حليه ورد أنت إيد دش تسعتها ما أقبل إنه إذا كمان يلين حتى واحد تاجر ما أنت إذا أسرع أبوري هل كاس كفش النساء أرضية فري سياد بر إذا كحرتي قبرك يسكر بهاري ويلا يكلا صباح إلا العقل كلام اللي يدرو وعند الذين نجا سياد برا نجا عقل بدنايا حرق وحنا فري وين إذا كنت تاسق برا قويان يجنعسي نبي توح كلام أنا رتي دي شيء مركو حيدا هيستلك الشيء عادي ما يدري كل شيء يعاون Soomaaliya waxay u godobooday dagaalka 720 waxay u godobooday qadiyada bariga dhexe ee Falastiin cadawga shisheeyaha Soomaaliya ku soo duulay dad Soomaali aboonaylaaya maanta isticmaalaya siyaad barana jabada waxa ku fiidkiciye dadkaasi ahaayeen waxa maanta taageersan waa iyaga kuwa maanta dawladiidka waxa garab taagan oo garab siinayana waa ama dad la shaqaysta yahuud oo sida imaaraadka oo kale ama waa Itoobiya waa intii waa isbadalkii waqtiga isbadalay ma ahane waa intii dawlad Soomaaliyeed in dhalatana waxa diidan waa iyaga madabta ugu weyn meesha naga soo raacdayna waa qadiyadii Soomaali weyn ama Soomaali Greed inaan Soomaali weyn raadsano baa dambiga ugu weyn naga raacay waxaan ku xadgudubnay shuruucii gaaladu ama reer Yurub iyo reer galbeedka ay Afrika u ma taqaanay u sameeyeen ee ahaa 60 ay sameeyeen ee ahaa waa xuduudii gumaysiga ee lagu xadgudbi karo khaladka aan galnay khalad ma ahayn dawada sax ahayd laakiin khaladka aan gaalada ka galnay waa shuruucii ay dhisteen ama ay jideeyeen baan waxaanu ka soo qaadnay wax been abuur
oo ku tumaday duulaankana saas uu nagu socdo Soomaalida ma taqaanay moodaya in markaasi maantay ay wax qabsan waayeen oo nin marxuum oo dhintay ma taqaanay eedusha ka saarayana walaalayaal waxa idan isticmaalaya dadkii siyaad barada dagaalay ee remote ay ilaa maanta isticmaalaya ina dawlad dhisataan waxa idin diidan waa iyaga waayo shuruucdoodii baad ka hortimaadeen world laws wax la yiraahdaa jira shuruucda adduunka oo ay gaaladu samaysteen new world order shuruucda cusub ee caalamka wax la yiraahdaa ka hortimaadeen waxay gaalada dhegsatay khariidada ay degsadeen baad ku tumateen godob baan la idin qaad waa la idin godobeeyay dulmiga ka taagan bariga dhexe iyo qadiyadeedana Soomaalidu iyo siyaad baran si adag bay u taageereen madaxana la wada istaagsan yahay idinkiina waxa la isku kiin mashquuliyo oo la iska kiin aaminsiiyay inaad idinku qayb ka tihiin burburka wallahi inaan qayb ka ahay waa la idin isticmaalaya waa la idin adeegsanaya maskaxdiina remote lagu isticmaalaya wax fahmo oo dadka ilaa maanta idin adeegsanaya iska dhiciya hada dawlad Soomaaliyeed inay dhisantay yaa hortaagan isla kooxii shalay siyaad barada dagaalay ma hortaagan waxaan ku qoslay oo la yaabay markaan arkay wasiirkii warfaafinta Puntland Caydiin oo afka dani ku hadlaya oo siyaad bar amaanaya ninkii wuxuu yiri maandhow aanay ma siiyeen manduqsiba uga daatay farmaajo wuxuu ahaa siyaad bari labaad baha Soomaaliyeena wax uu qabanayay ninkii lugaha qabtayna wuxuu ahaa Saciid Cabdullaahi Dani ninkii lugaha qabtay Saciid Cabdullaahi Dani baha shalayna wixii lugaha qabtay siyaad bar oo xabada ku riday reer Puntland dadka soo jeeda qabaa'ilka reer Puntland qabaa'il kamid ah maadaan afka ku ballaariyo ma jeerteen bay ahaayeen Caydiin waxa leenahay haddaad afkii dhulbaante ku hadlaysid waa lagu qaadan karaa amaanta siyaad bar aad u jeedisay laakiin haddaad afka dani ku hadlaysid waa munaafiqnimo shalay siyaad bar wixii riday oo lugaha qabteen ma jeerteen bay ahaayeen wixii farmaajo lugaha qabteen waxay ahaayeen ma jeerteen bay ahaayeen marka sabab uma jeerteen siyaad bar ku amaan oo ku bagaadiyo meesha ma taan laba ha markaan ma jeerteen kelmadaas isticmaalayo ana hada ma jeerteen idan la hadlay sababta inuu isticmaalayo wax kale ma ah anu ma ogoli baasha munaafiqnimada la yiraahdo shalay ragga iil ka dhigay maxamed cabdullaahi farmaajo soo rag ma jeerteen ma ahayno kablalah maxamed madoobi dani Soomaaliya oo kablalah inuu gaadano absama ah nin hartiyo Saciid Cabdullaahi Dani ma jeerteen soo ma ahay maxay u dhigeen maxay iilka u dhigeen ilaa siyaad bar wadadii farmaajo ku socday xukun awood uu rabay Soomaaliya sharaf uu rabay Soomaaliya guulis uu rabay Soomaaliya warshado uu rabay Soomaaliya ciidan uu rabay Soomaaliya sharaf uu rabay maxay ma taqaanay u higin sabab ay maanta nagu amaani karaan marka siyaad bar meesha ma taalo kaliya gaashaan ama difaac bay ka dhiganayaan ha illa wax kale oo ay dawladda Xasan Sheekh ku dhaylaan bay waayeen meel kasta laga soo xiray marxuumkii dhintay ee shalay sana saxanka u sameeyay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marxuumka siyaad bar la mid ahaa oo ay lugaha qabteen ahsaan uu ka waayay ma u sameeyay siyaad bar waxay ka hoos galayaan culeysyada haysta godoominta la saaray way ka hoos galayaan xaqna uma laha inay amaanaan xaq uma laha way shalay markuu noolaaba ahsaan umaysan sameyn xaq uma lahan markii inay amaanaan xaq uma lahan inay intii halkaas soo fariistaan isbarooriyaan xaq uma lahan runta reegisay qodobkaas intaas ku soo joojinaya aad badan islaamay meel ka soo degtaa